Waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halka aad nagala socotaan waa Xulasha Media. Maanta barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa khafiifinta labada isbuuc boqolkiiba 10 Jarmalka laga khafiifiyey xayiraadihii saarnaa. Waxaa kaliya ogolaasho la siiyey dukaamada dharka wixii ka bilowda macnaha wixii 800 oo kwaatirmitir ah iyo wixii ka sii weyn ayaa loo ogolaaday in ay furnaa karaan oo laga khafiifiyey. Nidaamkaas wuxuu dhaqan galayaa 20 bisha Abriil oo Britole oo Isniin ah. Waxaa kaloo xayiraada sii saarnaa doona sida timajaraha, maqaayadaha, kaniisadaha, meelaha bulshada isugu imaato. Inta xayiraada way sii saarnaa doontaa. Maanta argagax inuu ku hayo COVID-19 caalamka oo idil. Germany waxay ku dhiiradeen inay soo qaataan qaxooti caruur aan la socon waalidiintooda. Waxay ka soo qaateen dalka Greek. Caruurtan 47 qof ka kooban, da'dooda ka hooseyda 18 sano. Waxayna ka soo kala jeedaan dalalka kala ah sida Afghanistan, Suuriya iyo Eritrea. Maanta ayaana laga soo dejiyey gobolka Niedersachsen gaar ahaan magaalada Hanover. Haysata caalamka gaar ahaan reer galbeedka. Maanta coronavirus qofka uu dilo sidaan baa loo gubayaa. Xitaa waxay jaanis u waayeen in la duugo ayadoo dhimashadu ay aad ugu farabadatay. Xawal wadareed iyo gubid bay isugu dareen. Run ahaantii waa cashir Rabbi Subxaanahu wa Tacaala uu bixinayo. COVID-19 waxa kaloo sababay burbur dhaqaale oo baaxad weyn, kasoo kabashadiisana ay adag tahay muddo. Halka aad nagala socotaan waa Xulasha Media. Hadaba idin soo gudbiya warar wixii daafaha dunida naga soo gaaray. hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay Xulasha Media, fadlan subscribe, like, share intaba nagu dhiirigeli. Mahadsanidin.